waxaa jira laba qodob oo mar walba niyadeyda ku soo laalaabta taas oo haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay xal u helaan dalkeena isbedel weyn u horseedi doonta iyo horumar. Qodobka koobaad waxa weeyaan in ay dhalinyaradu ka xoroobaan qabyaaladda iyo kala qoqobnaanta gudaha dalkeena ka jirta. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa cidda saxda ah ee bedeli karta, tawjiihin karta, hagaajin karta oo ku jihayn karta bulshada inteeda kale wadada wanaagsan ee horumarkii baraaraha. Waana in laga gudbo qabyaaladda iyo kala qoqobnaanta, qofkana lagu qiimeeyo aqoontiisa, kartidiisa, waxa uu ummadda ku soo kordhi karo in lagu qiimeeyo. Aan lagu qiimeynin jufada uu yahay iyo jilibka uu yahay. Taas oo ah midana dhigtay meesha aan maanta joogno. Qodobka labaad waxa weeyaan in ay ka xoroobaan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay si saa'id ah ugu tarax tagaan danaha shakhsiga ah ama danaysiga. Haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qof walba oo dhalinyaro ah uu u qoondeeyo waqtigiisa qayb yar oo ka mid ah inuu ugu adeego bulshadiisa oo uu gaarsiiyo adeeg yar oo asaga u fudud, balse haddii ay isbiirbiirsadaan qof walba oo dhalinyarana laga helo wax yar oo waqtigiisa ka mid ah inuu bulshada ugu contribute gareeyo, waxa ay Soomaaliya u horseedi doontaa horumar waara oo sustainable ah. Tusaale, haddii aad tahay dhakhtar, haddii aad markaa 10 qof oo aad lacag ku qaadanayso ama aad beygaraynaya aad u adeegto, haddii aad dhex geliso 3 ama 2 qofood oo danyar ah oo aan awoodin in iska bixiyaan lacagta isbitaalka iyo lacagta booqashada dhakhtarka, waxay Soomaaliya ku soo kordhin doontaa qiimo weyn ay u kici doontaa. Bulshada Soomaaliyeedna caafimaadkooda qayb ka qaadan doonta.